marka laga soo tago ganacsiga Soomaalida ay ka sameeyso dalkani Koonfur Afrika ayaa dhanka kale Soomaalida waxa ay qayb weyn ka qaadataa dacwadda iyo fidinta diinta Islaamka. TV-ga Universal ayaa booqday masjidka Harare ee deegaanka Kayalija oo wax lagu baro dadka ku cusub diinta Islaamka ee ku sugan deegaankaasi, waxaana halkaasi kula kulmay Imraan oo aan horay u haysan diinta Islaamka balse uu sabab u noqday ganacsada Soomaaliyeed in uu qaato diinteena suuban ee Islaamka. In 6 years back, I met one of Somalian guy who had a shop there by me. Inshallah, he gave me a dawah. He shares. Muddo laga joogo 6 sano ayaa waxa ii yimid ganacsada Soomaaliyeed oo dukaan ku lahaa meel ii dhow. Waxa uu iga sheekeeyay taariikhdii Nabi Ibrahim iyo taariikhdii Nabi Yunus, naxariis iyo nabadgelyo korkooda ha ahaatee, waana ka helay taariikhdaasi. Kadibna waxaan qaatay diinta Islaamka. Wada fiican ayuu igu hogaamiyay ganacsadahaasi Soomaaliyeed. Farxad ayay ii tahay inaan ku sugnaado diinta Islaamka. Haddii aad si wanaagsan ugu dhaqanto diinta Islaamka waxa ay ku hogaaminaysaa ama ay ku horseedaysaa inaad jannada gasho haddii uu Ilaahay idmo. It is a mercy and lucky to be a Muslim because you see you live a good life. Inshallah, if you stick into those rules, they will lead you to Jannah. I'm Mrs. Mohammed. waxaan ahay xaaska Mohammed waxaan jeclahay diinta suuban ee Islaamka ninkaygu waa Soomaali. My husband is a Somalia. So it becomes very easy for us even if we don't know each other if we're coming from different place. aad bay inoogu fududahay inaan is aqoonsano inagoo ka kala nimid wadamo iyo goobo kala gedisan. waxaan ku xariirnaa oo aan isku aqoonsanaa diinta Islaamka iyo sunnada Nabiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee waana isku caawinaa. Sheekh Naazim oo ah imaamka masjidkani dadaalna ugu jira sidii uu ugu yeeri lahaa dadka aan haysan diinta Islaamka inay qaataan diinta suuban ee Islaamka ayaa weydiiyay tirada uu ku bilaabay xaruntani iyo cidda ka gacan siisa. Alhamdulillah, my name is Nazim and we start with 5 children and alhamdulillah today we got about 45 children. Alhamdulillah, maanta waxaa joogta 45 cunug oo aan diinta Islaamka halkan ku baro. mararka qaar waxa ay caawiya walalaha Soomaaliyeed ee deegaankan ganacsiga ku haysta. Alhamdulillah, some Somalia brothers, they help us to give the dawah, like maybe drinks or something, you know, and I appreciate a lot. Hassan Kafi Mohammed Shire, Television Ka Alamiga Universal, Magaalada Cape Town.